warbaahinta dalka Iran ayaa ku soo warantay in diyaarad nooceedu yahay 737 oo ay saarnaayeen ku dhawaad 180 qof ay ku burburtay meel aan ka fogeyn caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran. wakaaladda wararka ee Faris ayaa ku soo warantay in diyaaradan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukraine ay burburtay wax yar uun kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha Imam Khomeini ee caasimadda waddanka Iran ee Tehran. lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay shilkaasi. wararku waxay intaa ku darayaan in diyaaraddu ay ku sii jeeday caasimadda Ukraine ee Kiev ilaa iyo haddana ma cadda waxa sababay shilka diyaaradda iyo inay la xidhiidho xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. kooxaha gurmadka degdega ayaa loo diray halka ay diyaaraddu ku dhacday oo u dhow garoonkii ay ka kacday. madaxa hay'adda laanqeyrta bisha cas ee dalka Iran ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inay adag tahay in qof uu ka badbaado diyaaraddaasi dhacday. al-Khashani oo garoonka diyaaradaha Imam Khomeini u qaabilsan la macaamilida dadweynaha ayaa telefishinka Press TV ay leedahay dowladda Iran u sheegay in diyaaraddu markii ay dhacday uu dabqabsaday 160 qof oo rakaabka iyo 9 shaqaale ahna ay ku dhinteen halkaasi. sababta keentay shilka diyaaradda ayuu ku sheegay inay u badan tahay cillad farsamo. Rashiid Baarcad, Ariel TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.